su-aalihii xagga dhallinyarada u badan baa saa'ilkani uu soo qoray waa gabadh sidaa ka muuqata su-aasha waxay leedahay wiil buu xidhi naga dhexeeyey muddo dheer wuxuu ii sheegay bay tiri inaanu reer lahayn laakiin markii dambe waxa soo baxday inuu xaas kale leeyahay oo been buu ii sheegay kadibna xidhiidhkii waan ka goostay laakiin muddadii xidhiidhku noo socday lacag badan baan ka qabay bay tiri ilaa $7,000 gaadhaysa marka lacagtaas miyaa la igu leeyahay waan u celinayaa mise waa calayhaa lacagtaas su-aasha labaad saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay qofka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aflagaadeeya xeer ciqaabeedkiisu waa maxay shareecadu ay marinayso su-aasha ugu dambaysa ninka soo qoray wuxuu leeyahy waa nin dhallinyaraa isna sidaa ka muuqata haddii aan biyihii taranka iska keeno si aan xaaraan uga baaqsado ma ii bannaan tahay buu leeyahay sheekh maxamed qofka ruux dumara guurka la hadlaya khaatib baa la idhaahdaa walaa zaala fii waqti alkhidba sheekaysigoodana khidbaa la idhaahda asaawaha wixii uu siiyo ee hadiyada waxa uu siin karaa meher muqadamana wuu noqon karaa meherkii oo la qadimay hadiyadna wuu noqon karaa haddii ay kala noqdaan meherka qayb ka midana uu sii siiyey culimmadu way isku waafaqsan inay u celinayso waxaa kale ay u badan yihiin wixii ay ka sii qaaday wakhtigii ay sheekaysanayeen ay guurka ka wada hadlayeen isagana inay u celinayso taasina jumhuurkaa qabaa afarta madhab saddex baa qabaa waayo hadiyad caadiya ma ahayn laakiin hadiyad wax ku lifaaqayin bay ahayd hooyoo keen bay ahayd hooyoo dee aan ku guursada bay ahayd hadiyad fii sabiililaahi oo qof meeshaa loo iska joogay intoo loo dhiiba la dhaafayo dee ma ahayn waxbaa la socday waa hadiyad uu ku jiray tabaadul qof kasta oo markaa sabab daraaddeed wax loo siiyo sababtii haddii la waayo iyo wixii laga sugayey wixiisi waa loo celinayaa marka inantaasi haddii ay welibana xaggeeda ka timid weeye culimada qayb ka mid ah waxay leeyihin ka noqoshada hadday xaggiisa ka timid waxba loo celin maayo lakiin iminka waxaad sheegtay inuu wax ku siiyo 7,000 aad ka qabto welibana adigu guurkii aad ka noqotay sababta aad kaga noqotayna sabab lagaga noqon kara ma ahayn 7diisii kun waad ugu shubaysaa halkaa waxaa quraanjo ku quuso ah hablahan iska shaxaadayaasha ah odhanaya mobile iibi sheekada aan sii wadno ama sidii iibi ama ficiis iibi qaar baaba dee gaari ka xasiliye oo imikaba 7 kun dee gaari way goynayaan laakiin haddii la yidhaahdo inankii aad lahaa sawdeed guurka kaga noqotay wixii aad ka qaadatay u celi sheekadaasi way soo afjarmaysa waana sida sharciga ah saasaa culimmadu u badan yihiin qofkaa isagaa wixiisii loo celinayo waxaa taa kaa fursan kara un inaad ama dib ugu noqoto hawshii sii wadaan guurkii xalaasha ahaa ama aada muslaxato tiraa ma haye dee fadlan iga cafi marka waa nasiibka hadduu kaa cafiyo